kusoo dhawaada barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland goordhoweyd baanu soo galay magaalada Qardho waxa imika ila jooga gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay in magaalada aad nagu soo dhaweyso aad iyo aad baan ka mahad celinaya maasha noo timaadeen waa idinka mahad celinaya soo dhawaada aan leenahay Qardho kusoo dhawaada hawlaha aanu nimi magaaladan Qardho waxa kamida in hay'adda aanu la soconno ARC American Refugee Committee ay cunto u qaybiyaan dadkii abaaro ay saameeyeen gaarigii raashinka siday dhexdu ku soo jira marka intuu raashinku imanaya ayaa gudoomiyaha waxa ka codsaday bal hadda meelaha taariikhiga ah ee magaaladan Qardho inaanu soo booqano isla markaasna magaalada iyo nolosheeda iyo sida abaartu u saameysay uu warbixin naga siiyo gudoomiyuhu deedna gudoomiyuhu wuxuu ii sheegay in halka ugu horreysay laga bilaabaya ay goobtan noqoto gudoomiye goobtan maxaa la yidhaahdaa goobtan waxaa la yidhaahdaa halalow yahay booqan halalow yahay booqan haa runtii waa meel lagu xasuusto oo qadiimi ah oo loogu talagalay sidii aan anagu ka soo gaarnay la yidhaahdo waa meesha ay jinku degan yihiin jinka baa degan waa halalow yahay booqan bale hay booqan baa loo bixiyay marka waxa maanta idinkeena halka inaan nala aragtaan waan ku faraxsanahay inaan laga soo qayb gashaan runtii halka waa meel taariikhi ah oo cid kasta oo Qardho imanayso aan jecelnahay inay ka bilaabato halalow yahay booqan waxa weeye dhowr godo isku xiga sidaan qiyaasay kii horeyna soo maray iyo kan aad iyo aadna way u dheer yihiin intiina imika aan arkaynin gudoomiye maxaa markaa lagula maagay inay tahay xarunta jinka waxa lagula maagay waa wax lagu arkay weeye xiliyadii hore dhulkan waxa joog jiray jin habeenkii dhulkan waa kaahi jiray ciidii aagan soo gasha habeenkii waa la carari jiray oo qofkii waxa weeyaan isagoo si kale baa la carari jiray ka bacdi quraan baa la saari jiray quraan baa laga saari jiray jinka dad qaabilsan baa jira marka meesha tan hadeer waa hog weyn oo runtii wax weyn halkan ku ah nin la yiraahdo Maxamed Xaralaw naxariistay ayaa hadda ka hor dadka u horseeday in la geli karo wuxuu ku abuuray malab ku abuuray malabkii ka soo guray hadeer jaranjara u jeedaan jaranjarada isaa ku sameeyay waa ugu mahad celinayna hadeer waxa weeyaan dadku waa galaan oo runtii waa dhirta ku taala markasta waa qoyan tahay doogiya abaarba iska qoyan tahay marka waa arrin rabaani weey gudoomiye waxa tiri waayadii hore saasa la rumaysnaa marka imika waxa la rumaysay jinkii inuu iskaga tagay والله ولي دتكو قيب بار rumaysnay laakiin waxa aaminsanahay in hadeer jinkii yaraaday oo sidii hore is jirin baad aaminsanahay waa tahay taariikhda dadka yaqaana maxay kale ku sheegeen meesha taariikhdeedu maxay tahay biilahan wallahi meesha tan nin walba oo soo jireena wuxuu leeyahay waxaan ku garaadsaday meesha tan iyadoo leeyahay hallow yahay booqan weeye waa meel jinku uu galo waa meel jinka uu yahay gurigii hooyigiisa weyn uu yahay waxay leeyihiin bariga hore ka badan baan jiri jiray halka waa ka xijidhay oo cid uma dhawaan jirin marka qaab saasa ayaa laga haystaa laakiin ninka aad ii sheegtay inuu salaanka ku sameeyay ama jaranjaradu waxa kale oo aad ii sheegtay inuu shinni ku beeray markii dambe shinnidaasi ma joogtaa wali maya hadda ma joogto oo ninkii waxa weeyaa waa dhintay ka bacdi shinnida waa lagu hayn jiray sanduuqyo u dhigay hadii uu ninkii ka dhintay meeshiina cid ku sii haysan may jirin shinnidina waa iska tagtay meel kale ay aaday hadeer ma joogto shinnidii gartay marka meeshani ma meesha ugu muhiimsan ee la soo booqdaa marka la yimaado magaalada Qardho mise waxay ka mid tahay goobaha la soo booqday xiisaa leh goobaha ayay ka mid tahay meel badan baa jira insha Allah waana mareynaa waa hagaag waxaan u malaynayaa imika inaad fikrad wanaagsan ka qaadateen hoggan halalow iyo haybooqan goobaha kalena waa nala soo daawanaysaan sidii markii horeba aan idiin sheegay hawlahan halkan u nimi magaalada Qardho waxa kamid ah in raashin gargaar oo la siinayo dadkii abaaraha ku tabaaloobay ay qaybinayaan saraakiil nala socdo ka tirsan hay'adda ARC raashinka wali dhexdu ku soo jira saraakiisha halkan maraya ee ka tirsan ARC waxa kamid ah Roble Cabdi Muuse Roble raashin intee lag baa maanta qaybinaysaa waa maasanta Cabdi Salaan guud ahaan waxaanu ka qaybinaynaa Puntland raashin aynu ugu talagalnay 2,000 oo qoys oo kamid ah dadkii abaaruhu saameeyeen raashinkaasi wuxuu ka kooban yahay 7 shay oo bariis sonkor daqiiq saliid caano timir iyo sharaab
marka raashin dadkii abaaruhu saameeyeen aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiyaha haddaan abaarihii su-aal ka weydiiyo gudoomiye dee maasha alle dhulku imika waa barwaaqo xareeddaa meel walba jiifta rahaa kaciyaya laakiin abaartii ba'nayd ee geyiga soomaalida soo wada martay sidee bay deegaankan u saamaysay runtii deegaanka waxa weeyaan deegaankan hadda fiirsaan waa deegaanka dhuldaaqsimeed xooluhu ay isugu yimaadaan xilliga jiilaalka runtii jiilaal badan baa adag baa dhacay xilligii ay soo dhaafno December waxa ka daay dhinacan bariga hadda inay ka xiga roob baa ka daay Soomaaliya oo dhan waxay isugu timi halkan inta waxa oran karnaa inta af Soomaaliga ku hadasha halka isugu timi runtii jiilaalkaas wuxuu ahaa jiilaal adag oo aan Soomaaliya soo marin xoolihii waa dhinteen runtii waxa la isu taagay inta joogto oo timin naqakan in la isu taago waana la isu taagay waxaan oran karnaa xoolaha halka jooga 6% waa dhinteen 40% baa haray annaguna waxaan isna isu sii taagnay in dadka soo baadi guuray oo dhulkii garan waayay inaanu aad xooga u saarno dad badan hal soona hadda qarrood ilaa 20 gaari baa wax gudoomay wax baawur xumaaday wax ka dhacay inta waxaan kuwa kale aan ku bedelnay xoolii waa gaarsiinay naqiba gaarsiinay runtii wax badan baa loo qabtay xagga biyaha waa laga caawiyay raashinka waa laga caawiyay aad iyo aad ugu dadaalay marka dadka gudoomiyay imika abaaraha xoolii ay ka raaceen ma meel gaar ah dejiseen runtii ma dejin haddeer qarro ilaa 250 qoys ayaa jooga oo waxay ku dulnool yihiin eheladoodii ayay ku dulnool yihiin waxaan diidnay in kaamam la sameeyo kaamam haddeer qaxootiya marka dadku la dulnool yihiin waxaan rabnaa bal in hay'adahana waxaan u soo jeedinay dadka xooluhu ka dhamaadeen ama qaybta u hareen in loo celiyo xoolihii gadaal wax loogu iibiyo oo dadkii baadihii ay ka soo dhamaan laakiin gadaal loogu abuuro baadiyaha waa hagaag gudoomiyaha ayaa dabcan ina soo tusaya goobaha kale taariikhiga ama xiisaha leh ee magaaladan Qardho waa ta la yiraahdo saban kasto xun ama adag waxa ka dambeeyay saban wanaagsan abaartii runtii masiibada ahayd ee lagu hoobtay dadka xoolihii oo dhamay ka raaceen sima loogu magac daray waxa ka dambeeyay waxa arkaysaan waxaanu joognaa duleedka magaalada Qardho gudoomiye goobtan maxaa la yiraahdaa goobtan waxa la yiraahdaa Ceel Harre waa balli weyn oo biyaha qabta waa Ceel Harre maxaa kaloo caan ku yahay Ceel Harre meesha tan waxa weeyaan waa dooxooyinka waaweyn oo Qardho qayb ka mid ah weeyeen halkan agteena waxa isugu imanaya 4 dulood oo Qardhood waa meeshu sayidku yiri dalka xagee ugu qurux badan la weydiiyay waxa wuxuu yiri 4 dulood oo Qardhood oo doogsaday ma ku dadeen buu yiri maanta waa inoo doogsaday waana arkaynaa laagtana waa laag ka soo baxday oo Ceel Harre la yiraahdo ma sha Allah marka afarta aad sheegayso ee dooxo xagee bay isugu yimaadaan waxay isugu yimaadaan bartan wax hadar kilomitir inuu ku jira gudoomiye waxa halka iga muuqdo kale xaasas iyo caruur iyo ma dad meesha u soo dalxiis tagayba meesha waa loo soo dalxiistay meesha waa meel dalxiis oo marka uu roobku ka daawo barwaaqada saatan oo kale ay noqoto runtii waxa weeye meel bulshadu ay timaado oo maalintii lagu qadeeyo oo ilaa casarkii laga caraabo dadka waa u jeedaan hadda dadka oo dhan ciyaaladii xaasaskii kulli waxay karsanayaan qadada hal korsanayaan qabowgaas bay soo raaceen iyo raxmadda rabbi waan uga mahadnaqaynaa marka xooluhu halkan ma ka cabaan Ceel Harre way ka cabaan xooluhu waa yimaadaan laakiin hadda uma baahna hadda waa barwaaqo hay waa fadhi ku dhereg waa fadhi ku dhereg way barqada fariistaan gudoomiye marka magaaladan Qardho iyo nawaaxigeedo imika aynu joogno roobku sidee ku ahaayeen roob lixaad la ka daay runtii waa wax loo ilaaha loogu mahadiyo laakiin roob fiican baa ka daay gartay waxaan u malaynayaa halkan qofka seexda dirmooyin baa halka iga muuqdee hurdadii dhaaftay 92 waa soo noqonaysa maya waxa u soo noqonaysa 1920 tii dhaaftay waa soo noqonaysa
runtii waa meel aad iyo aad u qurux badan oo doogga iyo dhirtii oo magooshay iyo biyihii oo fadhiya waxaasoo dhan baa isqabsaday oo carruurtiina ay ku dhex ciyaarayaan abaarta see ilaa iminka looga soo doogay markaa abaartii dad iyo xoolo insha Allah wixii noo haray waa soo doogeen inkastoo dee xoolihii intii badnay ay dhinteen laakiin alxamdulillah inta soo hartay maanta ayaa dadka ku filanaya markii horena xoolaha iyo dhulka waxa moodaa in xoolihii bateen marka ilaahay waxa weeyaa marka xoolo bataan waanu saamiyaa si uu dhulka ugu filaysiyo marka waxaan leenahay dadku inay ka faa'iideystaan xoolaha yar oo u soo haray inay ka faa'iideystaan oo ay u sameystaan wax mustaqbal iyaga u leh laakiin xoolaha in la iska dhaqo maaha laakiin gudoomiye arrinta kale inta badan Soomaaliya laga dhawaajiyo waxa weeye in dhulkii sare laga wada dhigtay oo dadna xoolihii meel ay daaqaan ba ay waayeen oo meel kasta shaagii gawaaridu uu maray oo biyo qabatinka dhulkii ahaa uu meesha ka baxay dhibaatada idinku seekatiin runtii Soomaaliya waa la qabnaa inteeda badan runtii anagu qarda ka ahaan waa baabiinay dhammaan seerayaashii sanadkii weyd baan baabiinay markii la isugu soo guuray halkan hal seero oo hadeer yaal ma jiro walow ay dib ay ka timi baabuur fara badan ayaa soo gurtay dadkii xoolaha ay watay oo u soo naqraacisay naqa dhulka baabuurtii waxay sameeyeen marka boholood badan bay sameeyeen dhulkii waa dileen runtii waxa ka dilaacay boholo dooxooyinka hadda dooxooyin badan baa waxa dhacday inay biyihii ka leexdeen insha Allah waxaan rajaynayaa iyadana in assessment la sameeyo aan qiimeeno oo qolyaha deegaanka la kaashano insha Allah aan wax ka qabanaa rajaynaa way bal hadda halkii ay ku kulmayeen afarta dooxo ayaynu imika soo eegaynaa waa goobtii sayidku uu sheegay weli maynu gaadhin anigoo quruxda dee dhulkan la amakaagsan halkii gudoomiyuhu uu sheegay ee sayidkuna uu quruxda ku tilmaansaday oo halka afarta dooxo ay ku kulmaan halkaasaynu imika soo eegaynaa imika waxaanu soo gaadhnay goobtii gudoomiyaha degmada Qardho inoo sheegayay sayidku uu ku amaanay bilicda laakiin intaynaan halkaa tegin waxaan jeclahay bal hadda tusaale yar inaad ka siiyo marka wax la dhisayo dee saamaynta ay deegaanka ku yeelan karayso dhinacaasi waxa weeye dooxada Kurtumo dhinacan waa dooxada Kurtumo dhinacana waxa ka soo dhaca ceel dooxada ceel mur la yiraahdo dhinaca waxa ka soo dhaca dooxada la yiraahdo Sajilbo dhinacana waa Baalqoomo biyahan oo dhan waxay isugu soo dhacaan Baalqoomo ka bacdina badda ayay galaan oo 250 kilomitir noo jirta gartay laakiin labadii gabiye wadadu ama labada dhinac ee jidku waxa gudoomiye qaybna ay sida ugu noqotay cagaar qaybna aanay cagaar u lahayn runtii waa u jeedaan dhinacan waa cagaar waa dhankii biyo ku soo dhacayeen dhinacana waa abaar oo waa dhankii u dhacayeen dhibtana waxa leh laamigan markii la sameeyay 1988 ayaa waxay ahayd in laga sameeyo buunda jiif laakiin ma suuroobin waxa la biyaha ay ugu suurta gali karto inay dhinaca u gudbaan laakiin ma suurtoobin oo waxa la yeelay waa la taagay waxay noqotay moosas yar baa loo sameeyay moosaskiina waxa weeyaan biyihii intii badnay meel kale iyo u duween marka waxay ahayd in hadda ka bacdi laga taxadaro waxaan soo jeedinaynaa laabiyaha Soomaaliya marka loo sameeyo in laga taxadaro meelaha biyuhu ay maraan oo buunta jiifsiyo loo dhigo gudoomiye halkan waa goobtii aad inoo soo waday baan u malaynayaa sayidkuna oo quruxda ku amaanay dooxooyinka afraad badan ay isugu yimaadaan barwaaqadeedu san ma ka badataa waa ka badataa oo saa u jeedid hadeer xilli waxa jirta xaggan iyo xagga labadu ay barwaaqan yihiin hadeer waa u jeedaa dhinacanka biyihii baa xiray marka waxa jira mar biyuhu ay ka maraan dusha ka maraan laamigan oo wadanka oo dhan uu green isla noqdo runtii wali halka waxa oran karnaa roobka waa ku yar yihiin laakiin mar bay ka badan yihiin tan deegaankan marka dooxooyinkii geed hoosaad badan buu leeyahay dhirtii waaweyneed saaguma badnayn ka soo qurac badan ku yaalo deegaankan ma geel uu fiican yahay mise ariga deegaankan wuxuu u fiican yahay dooxooyinkan geela iyo idaha uu fiican yahay arigu geela iyo idaha dee wajidaan qarkiina waa wajidaan riyuuna qarkan ka baxayaan oo riyuuna buurahaas faranayaan geela iyo idahuna dooxadaas daaqayaan galabtiina waa soo wada dhacayaan halkan wada joogayaan gartay deegaan kale oo dhamay markaa dooxooyinku maad bay ugu badan yihiin deegaankan oo la dooxooyinku waa ku badan yihiin oo runtii waxa weeyaan
dooxooyin waaweyn qarar yar yar buuro waaweyn hadeer waxa la oran karaa hadeenu dhinacan koonfurta u sii kacno dhul wada siman oo dooxa ah ayaan wada tagaynaa waxa la yiraahdaa ayax geed kaaban baa la yiraahdaa ayax geed kaaban ha marka dhul wada siman oo dooxooyin oo baliyo wada dhaca waxa kaloo isaguna maanta naweheliya agaasimaha madaxtooyada gobolka Karkaar Ali Baashi Saciid Muuse dadkii deegaankan markii hore ku soo qaxay ee halkan deganaa xagee ka dhacay nimanka amsana horta ma soo qaxine horta dhulkoodii bay u soo guureen oo abaar baa soo barakaysay qax ma ahayn dadkii markii halkan yimaadeen horta run ahaantii dadkii u yimaadeen oo walaalahooda ahaa si wanaagsan bay u fikireen oo waxay garteen wixii taakula ah iyaga in lagu taakulayo maadaama ay ka yimaadeen deegaankii ciidiisa ay yaqiineen ay ka yimaadeen haddii abaartii ilaahayna ka saaro roobna halkan xaggana roob ka da'ay waqooyina roob ka da'ay oo la barwaaqoobay waxay go'aansadeen inay dhulkii ay dib ugu laabtaan hadda halkan aynu joogno guryaha ku muuqda qayb waa iyagii oo halkan ay yimaadeen waxay leeyihiin ma socono waa joogeynaa weli way joogaan waan reer Somaliland okay intii kale waxa la go'aamiyay in la celiyo dawladdu waxay go'aansatay in la taakulayo gaadiid loo qabto shidaalka laga bixiyo la raro waayadan dambe abaaraha baani ay ka dhaceen geyga Soomaalida geeska Afrika waxyaabaha cusub ee soo kordhay waxa ka mid ah in reeruhu markay guurayaan halkii awrta laga adeegsan jiray iminka gawaari lagu guuro gaarigan oo aan kula kulannay magaalada Garowe ayaa ka mid ah gawaarida qaada dadka iyo xoolahaba ee markaa ku celinaya deegaankii markii hore ay ka soo guureen walaal xageed ka soo qaaday reer dhuudo guduuda waa xagee dhuudo waa dhuudo tuulada dhuudo la yiraahdo ha dhuudo xagee ku taala dhuudo waxay ku taala bayla aaga bayla degmada bayla xageed markaa u qaadaysaa hawd birdeer aaga birdeer birta dheer yaageeda ha oo hawdka bariga hore gawaarida waxa ariga sanoo kale loogu rari jiray marka la geynayo dekadaha la dhoofinayo laakiin imika arigina gaarigu saaran yahay aqal Soomaaligii reerkuna wuxuu saaran yahay xagga sare waxa la ii sheegay in xubnihii qoyskuna ay la soo socdaan gaari kale oo markaa ay iyaguna ku guurayaan marka waa farsamooyinka cusub ee soo kordhay maadaama masaafad ka dheer intii awrtu ay reeraha rari jireen oo kale ama lagu guuri jiray masaafad ka badan imika la guuro waa farsamada cusub ee soo kordhay waxa weeye 20ka bisha May sanadka 2017 waxaanu imika ku sugannahay deegaanka ama tuulada Faliidyaale oo ka tirsan gobolka Sool
inkastoo roobabkii gugu ay ka corteen inta badan deegaamadan ama guud ahaanba geeska Afrika laakiin waxaa jira weli deegaamo roobabku aanay ama helinba ama aanay si wanaagsan u helin waa arkaysaan deegaankani siduu weli oomanaha u yahay hay'adda ARC ayaa maanta deeq raashina keentay deegaankan oo ku qaybinaysa waxaynu eegi doonaa bal hadda hawsha sida ay u qabanayaan shaqaalaha ARC laakiin sida idin muuqata dadkii deegaanka joogay markii ay maqleen warkan ku saabsan in raashinka gargaarka la qaybinayo tuulahan Faleedyaale oo kaliya maahe tuulaha iyo nawaaxigiisa iyo deegaankan oo dhan ayay dad fara badan ka yimaadeen si markaa ay uga calaf qaadaan raashinka gargaarka dadkii waa arkaysaan waa kuwa magaalada ku soo socda qaarkood dad fara badan baa iminka magaalada ku soo qulqulaya oo doonaya inay ka calaf qaadaan laakiin sida lanoo sheegay mas'uuliyiinta tuulaha Faleedyaale ayaa waxay sii diyaariyeen liiska dadka ugu baahida badan ama ugu tamarta daran ee deegaankan ku nool marka liiskaas loo gudbiyay shaqaalaha hay'adda ARC ama American Refugee Committee oo iyaguna markaa liiska raacaya oo gargaarka saa ku qaybinaya waa taa dadkii oo dumar iyo carruur badan waxay ka imanayaan jiho walba way idin muuqdaan baan u malaynayaa dhinac walbay magaalada ka soo gelayaan raashinkii baa markaa hadda la rogayaa waxaanu joognaa tuulaha Faleedyaale oo ka tirsan gobolka Sool halkan oo maanta sida arkaysaan raashin ay ku qaybinayso hay'adda ARC ama American Refugee Committee saraakiisha hawshan wada waxaa ka mid ah Rooble Cabdi Muuse Rooble Faleedyaale hawshan ay ku qaybinaysaan maanta imise qoys baa la gaarsiinayaa cabdisalaam waad mahadsan tahay saad sheegtay waxaynu Faleedyaale ku sugannahay oo aynu raashinkii gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen aynu ka qaybinaynaa goobtan iyada waxaynu ku qaybinaynaa raashin loogu talagalay 150 qoys oo ka kooban 8 shay oo ah bariis sonkor daqiiq caano sharaabka la qooshtay cananiska timir iyo saliid marka 150 qoys oo kamid ah dadkii deegaankan ee xooluhu ka baxeen ee dadka ugu taalka darnaaya ayaynu doonaynaa inaynu gaarsiino 150 raashinkii waa ka halka safan ee la isdul saaray dadkina halkaas ay iminka safan yihiin Roblow marka sidan oo kale hawshan oo kale u galaysaan سكو حلطان مالها راشين كقيبنيسان والله عبد السلام laba nooc baan u kala xulanaa dadka laba heer halka deegaanka aan wax ka qaybinayno inta badan waxaan la tashanaa dawladaha iyo gudiyada abaaraha waayo iyaga ka warqaba halka baahida ugu culus jirto waxa kale og yihiin meeshii ay wax geeyeen iyo meesha baahidu badan tahay marka doorashada deegaanka waxaan la tashanaa gudiyada abaaraha doorashada dadkana waxaan la tashanaa gudiyada kolba dadka deegaanka la joogo waayo Faleedyaale inagu ma garan karno qoyska ka jilicsan laakiin odayaasha iyo gudida Faleedyaale iyaga iskala yaqaan iyaga garanaya qofka ugu baahi badan markaynu degmada dooranaynin waxaan la tashanay gudida abaaraha markaynu dadka dooranayna waxaan la tashanaynaa dadka ugu jilicsan marka waa kuwa dadkii diyaariyay ee safay line-ka waa kuwa dumarkii noo soo xulay raxmaa ka xaynaysa imiko qoys kasta dulgeynaysa raashinkiisii sidaasaan hawsha u sameynaa Cabdisalaam waad mahadsantahay
qadiijaa la yidhahaa aniga dadka kanaanu ahayn deegaanka Falleeryaale oo doodidaas aanu ka soo guurnay ma fahantay waxa weeyaan waxaanu haysanay abaar baa la tagtay markii hore waxa la keenay xoolo yar xoolihiina hadeerto iska soo madhay oo xaggaasay ku soo idlaadeen alaa iyo xal halkaas aanu anagu hadeerto joognaa qutulyoonkanna maxay ahayd toy suuliyo farsaarkaas aanu lahayn suuliyo farsaarka wuxuu qabtay wuxuu qaban waayaba waa la qaadan jiray qofku qaban waayo ma qaadan jirin waa iska tagi jiray wadadu qaadi jiray ma fahantay waxa weeyaan adeeg male maxay ahayd toy halkaas aanu joognaa hoy malihin halkaas aanu deganahay idinkana maanta tan mid ka horeysa oo wadaada noo keeneen baanu aragnay mid ka horeyso mar hore markaanu soo xiroonay goorma ahayd markaas muddo aan dhaweyn bay ahayd muddo aan dhaweyn adigu bariye xooluhu naga tageen bishii saddexaad xoolaha aad markii hore haysatay intee bay dhamaayeen xoolo fiican oo ari iyo geel bay haayeen oo arigu wuxuu ahaa ari adigu dee fiican oo kun buu ahaa qoyskaaguna imise qof buu ka kooban yahay qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay 14 qof raashinkan maanta lagu siiyey markaa sidaad u aragtaa raashinkan waa raashin fiican maasha Allah weeye maasha Allah weeye wixii noo keenay iyo isagaba Ilaahay noo xalfo marka waxa weeye anagu halkaas aan joognaa maxay ahayd tooy adeeg ma haysano maxay ahayd tooy maataanu nahay ragna lama joogo maxay ahayd tooy biyuhu waa nagu cidhiidh gabadha kale ayaa iyana ka mid ah dadka maanta nasiibka u yeeshay in ay ka qayb qaataan raashinka gargaarka ee hay'adda ARC ay ku qaybinayso tuulada Falleeryaale ee gobolka Sool walaal magaca Aasha la yiraahdo Aasha Xuseen baa la yiraahdaa Aasha xageed ka soo guurtay adiguna markii hore waxaan ka soo guuray baadiyahana waxaan ugu heshay xoolo dhaqataanu ahayn xoolihii waa naga abaar tira badan baa naga heshay say u socdeen dhowr sano ka kooban ayaa naga heshay siday u socdeen waa iska dhamaadeen wax yar ah takoora bari loo dhigay barigana wixii ba ku soo dadkii baa nooga soo cayntay marka wax gargaar oo hore intii aad deegaan ka timaadeen ma hesheen wax gargaar oo hore suul iyo farsaar nin basi u helo nin helayo nin waayaba baanu helay waxa nooga horeysay tiinan maanta farfadhi noocaas ah oo niman wadaadii noo keeneen wuxuu noo keenay raashinka dawladda hay'adda ka timi dadka noo keenay inta uu mahadayna alxamdulillaah rabbil caalamiin idinkana ilaahay khayr iyo jaasayd kabar aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaanu joognaa duleedka magaalada Garowe ee magaalada madaxda Puntland magaalada Garowe waxa ku yaalay 5 ilaa 6 idaacadood oo madax bannaan oo wararka iyo barnaamijyada u sii daaya dadka ku nool deegaankan laakiin idaacadahaasi iyo idaacadii aad hore u maqli jirtay ama aad horeba u aragtay waxa ka duwan Radio Dalmar Radio Dalmar waa idaacadda wareegta oo gaariga saaran oo marba meel laga shido ama meel laga daaro haddii waayo hore aad maqli jirtay idaacadda wareegta oo caan ahayd berigii intaanay dhicin xukuumaddii hore ee Soomaaliya oo jabhadihii ku kacsan ay isticmaali jireen idaacadda wareegta oo rasmi waa Radio Dalmar سماعدها واوين باكو ركبان iyo warlaliyaashii deedna masaafada uu hadba joogo ayuu barnaamijyada ku baahiyaa waxa idaacadan iskale Axmed Awil Jaamac Axmedow
maxaad ku keentay fikraddan inaad samayso reediyoga wareega fikraddan waxaan ku keenay markii aanu aragnay ama daraasad aanu ku samaynay meelo kala duwan oo Soomaaliya ah ama Puntland oo hadda aan joogno ay ka mid tahay aysan gaarin idaacadaha FM ta ayaanu hindisnay inay u baahan yihiin dadku in loo geeyo idaacado guurguurta oo hadba meesha ay joogaan ugu taga si ay baahidooda ay ugu sheegtaan isla markaasna fariimo iyaga dhaxalgal u ah ay u sheegto marka sidan imika aynu arkayno ma sameecadahaas ma laga dhageystaa mise masaafad kale gaadha maya waxa sameecadaha waa laga dhageystaa FM10 waa laga dhageystaa dadka markaan u tagno tusaale ahaan aan tagno hadda deegaanka aad ka timaadeen oo kale tukaraq markaan aan tagno tukaraq waxaan u samaynaynaa sameecadana waa uga daaranaa dadka aan maqlayn oo aan haysan rikoorada inta rikoorada haystana waxa ay ka daaranayaan halka ay joogaan bay rikooradooda ay ka daaranayaan barnaamijyada marka aad sii daysaan maxay ka kooban yihiin barnaamijyada anagu xooga aan saarno wax siyaasadda shuqul kuma laha waxaan xooga saarnaa arrimaha bulshada weliba wacyigelintooda aan xooga saarno sida hadda aad dareemaysa ama aad aragtid waxa weeye waxa ka daaran barnaamij ku saabsan xagga nadaafad darrada iyo weliba shubanka dhibaatada uu keeno dagaalanka shubanka idaacadii markaa wariyayaal bay u baahan tahay wariyayaashuna ma gaarigay la socdaan wariyaasha inta badan stuudiyan waxaan ku leenahay gudaha magaalada Garowe marka waxaan soo saarnaa barnaamijyada baan diyaarinaa mararka qaarkoodna hal wariya waa raaca laakiin inta badan waxaan barnaamijyada sii daysaan marka maxay isugu jiraan barnaamijyada waxay isugu jiraan caafimaadka waxbarashada la dagaalanka wacyigelin ku saabsan arrimaha burcadbadeedda sida aad la socotid deegaankan marba jirtay burcadbadeeddu aad ugu faaftay waxay tagtay inaanu wacyigelin aan u tagno dhulka xeebaha ah ee Puntland bulshada aanu ka wacyigelino door muhiim aanu ka qaadanay in ay burcadbadeedda ay dhulkan ay ka suudho iyo weliba barnaamijyada ku saabsan xuquuqul insaanka arrimaha dimuqraasiyadda oo la doonayo Puntland inay dhawaan ay u guurto waxaasoo dhan baanu xooga saarnaa marka wacyigelintu waa tiro badanta sida la socotid ilaalinta deegaanka ayaa ka mid ah hadda socodkan waxaan ka nimi dhul ballaaran oo aad hadda masaafadiisu inuu ka fog tahay oo dhulka hadda Puntland iyo iska galaan Ethiopia meel la dhaho Dar es Salaam ayaanu socodkan aanu ka nimi dhinaca kale waxaan tagnay Jiriban meel la dhaho oo aanu ka soo wacyigelinay sida ay shubanka iyo ay magaranaysaa iskaga ilaalin lahaayeen iyo nadaafadooda sida ay magaranaysaa marka ma la oran karayaa barnaamijyadiin waxa weeye qaar xagga samafalka oo tusaale ahaan hay'adaha kala shaqeysaan mise wararna dadka waa u sheegtaan mararka qaarkood way jirtaa inaanu hay'adaha samafalka iyo aanu kala shaqeyno dhinaca wacyigelinaha ay wadaan laakiin wararka waxa weeye naguma badnaa inaanu mararka qaarkood aan samayno wax ay dadku danaynayaan ma ahane wararka inta badan xoog ma saarna laakiin barnaamijyo ku saabsan wacyiga ummadda hadba ka turjumaya qiimkooda iyo maskaxdooda siyaadin kara ayaanu samaynaa idaacadaha kale sida lagu yaqaano waxay leeyihiin waqti ay hawada soo galaan iyo waqti ay ka baxaan radio dalmar taama kaga duwan yihiin maleedii waqti ay soo gashaan waqti aan soo galno waxa weeye hadba meesha aan tagno baan waqti gaara aanu u shidnaa waxa weeye waqtiga ay bulshadaasi ay firaaqa ay leeyihiin laakiin annagu waqti gooni ah aanu leenahay ma jirto laakiin mar kasta waxaa dhici karta inaanu maalintii oo dhan aan shaqo ku jirno habeenkiina waxaa dhici karta shaqo inaanu ku jirno laakiin su'aal kale haddaan ku weydiiyo haddii waqtiyada qaarkood aanay jirin barnaamijyo wacyigelina oo tusaale ahaan hay'adaha kale aad kala shaqaynaysaan idaacadda ma iska shidaan idaacadda waa iska shidnaa mar kasta waxa weeye waa inay dadku ay arkaan bulshada mararka qaarkood annaga waxaan daarnaa ma ogtahay hay'ado iyo wacyigelintaas intaan iska dhaafnaa waxaan diyaarinaa barnaamijyo ma garanaysaa muhiim u ah bulshada baanu intaanu samaynaanu u daarnaa shidaalada baabuurka ku shubanno xataa shirkadaha mararka qaarkood intaan u tagno aan dhahnaa shidaalka nagu shubo oo si aanu deegaankaasi aan u gaarno hadda samtel baa ka mid ah shirkadaha aad noo caawiya markaa dadka idin dhegeysta radio dalmar ma waxa u yaqaanaa idaacadda wareegta mise radio dalmar idaacadda wareegta oo gurgurtay ku leeyihiin reer miyiga sida aad la socotid waxay sameeyaan ma ogtahay waa iska geedi marka waxay iyagu ku ablaagareeyeen wareer idaacaddan gurgurta maxay tahay bay ku leeyihiin marka idaacadda gurgurta
ayay dhahaan gartay maxaa idiin qorshaysan markaa mustaqbalka haddii aan la yidhaa mustaqbalka waxaa noo qorshaysan inaanu soomaaliya oo dhan aanu ku faafno waxaanu rajaynaynaa in ma garanaysaa dadkeenna oo dhan ay xagga wacyigelinta ay isku mid ay u helaan sidaan la socno dee magaalooyinkii waaweynaa waxa weeye waxay haystaan idaacado badan laakiin annagu waxaanu xoogga saarnaa dhulka miyiga ah tuulooyinka aan idaacadaha helin marka waxaan rajaynaynaa inaanu gaadiid intaan ka badan aanu samayno oo waxa weeye meel kasta iyo tuulo kasta iyo deegaan kasta iyo gobol kasta uu baabuur u gaaro helo oo dalmar ay ku qoran tahay si uu dadkaas wacyigelinta u gaarsiiyo hadda waxa weeye dhulkii baan ugu ballaartay hal baabuurna way tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay haddii suurtagal ay tahay bal hadda ma eegi karnaa si dadku fikrad uga qaataan idaacadda wareegta iyo qalabkeeda iyo sida aad la socotid bahalkan kore waa codbaahiyaha sameecadaha aad ka dhegaysanaysaan FMT waatan oo waxa weeye dadku ay rikoorada ay ka dhegaysanayeen fiilooyinkanna waa fahmi kartaan de waa qalabkii waxaan taxayay korontadii uu bahalkan uu dabka ka qaadanaya baabuurka baterigiisu isagu iskuma xirna laakiin waa qalab loogu talagalay dabdhaliya oo halkan ayuu systemkiisi wixiisi ay ku xiran yihiin baabuurkan marka wax badan buu iskugu jiraa mararka qaarkood haddii roob uu noo yimaado waxaanu leenahay teendhadii aanu roobka aanu ka jirsanaynay si markaa aanay dee u qoyin qalabkan dusha saaran oo kale qalabkan dusha saaran oo kale waxaanu leenahay teendhadii oo aanu mararka qaarkood aanu ku dadno anteenadu waa ujeedaa kore oo waxa weeye waa bahashii gudbinaysay codka marka waxa weeye fikraddan waxaan rajaynaynaa haddii rabbi idanka ka dhigo adigoo khabiirana inaad wixii cilmiga aad haysid aad nagu soo degto aad iyo aad baad umahadsantahay laakiin tusaale ahaan haddaa jidka kula kulantaan qof aad doonaysaa inaad waraysataan ma stuudiyaha la tagtaan mise halkan waa ku samayn kartaa qalabkii rikooradii baan wadanaa oo waxa weeye aanu ku waraysannaa isla markaasna waxaan samaynaa hadda markaanu tusaale aan tagno degmada ayl markaan tagno dadkan iskugu yeernaa barnaamijyadoodaan u qabanaa kombiyuutarka yar iyo irkaamaan wadanaa waa ka duubnaa markaanu ka duubno baanu barnaamijkii aan u soo daynaa xataa waxaan samaynaa haddaan doonno moobiladayada baa waxaan dhahnaa dadku waa naga soo wici karaan halkaas aragtidooda ay ka dhiibtaan sida ay ma garanaysaa ay u arkaan barnaamijyadan aad iyo aad baad umahadsan tahay nasiib wanaagsan baan idiin rajaynayaa haddii aad maqli jirtay ama maskaxdaada ay ku soo dhici jirtay idaacaddu inay tahay wax aad u weyn oo dowladahoo kale tusaale ahaan ay leeyihiin oo marka la rarayo u baahan qalab badan iyo hawl badan iyo waa taa bahasha idaacadahayd intaas lagu soo koobay saa arkaysaa maana u shaqaynaysaa nasiib wanaagsan baan idiin rajaynaya walaal mar kale